بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa qiso aan idinka soo duwi doono telefishinka Hargeysa. qisadan ayaa waxay tahay sheeko la magac baxday qisadii Mulax Beyle iyo guurkii Xasan. waxay qisadan ay ku saabsan tahay ninka lagu magacaabo Xasan olol jaamac oo ah ninkan odayga ah ee dhinacayga fadhiya. qisadan ayaa waxay tahay qiso dhacday sanadkii 1948 waxaana ay ahayd qiso ku saabsan guur dhaxmaray isaga oo Xasana iyo gabadh Jiniya ama jinka ka tirsan oo la oran jiray Amina Sultan oo jinka ka tirsan waxa uu Xasan qabay muddo waxaana ay u dhashay sida uu noo sheegay caruur fara badan oo ilaa 14 gaaraysa. bal haddaba sheekadaasu sidii u dhacday sidii isku guursadeen sidii ay wada joogeen iyo waxyaabihii dhaxmaray muddadaasi iyadoo qisadan waxay run ahaantii qiso cajiib laga yaabana inaad qaarkiin hore aad u maqasheen ayaa waxaanu bal halkan aan weydiinaynaa Xasan bal marka hore inuu nooga soo warramo taariikhdiisii nololeed halka uu ku dhashay sida uu soo barbaray ka bacdina sheekadani halkii ay ka abuurantay iyo sidii ay u dhacday inuu inoo guda galo maadaama aanu fursad u helnay Xasan inaan maanta ku marti qaadno stuudiyaha telefishinka Hargeysa TV. Xasan bal ku soo dhawow adigoo qisadii Mulax Beyle iyo gabadhii Jiniyada ahayd ee xaaskaaga mar noqotay nooga sheekeynaya. Axmedow markii hore waxaan ku soo barbaaray magaalada la yiraahdo Caarigaabo dhalinyaranimadaydi waxaan ahaa ninka balooniga iyo kubadda afkeena xagga looga yaqaanayo raga footballka ciyaara iyo xeegaa la ciyaari jiray berigeeda xeegadana waa ciyaari jiray markii dambena waan ka dhoofay oo waan ka daajogo abtigay oo xiis degan baan u tegey anoo abtigay xiis halkaasaan la joogay muddo markaan muddo la joogay baa inama waxay ka yimaadeen magaalada la yidhaahdo Berbera Axmedow waxaan yidhi war xagee ka timaadeen Berbera maxaa ka shaqayn jirteen maraakiibta xoolaana dejisa xoolaana qaada oo xagee la maraa ama dooyaha la raacaa baa la yidhi ama xeebtaasaa ku geynaysa haddii aad raacdo abtigay baan u imi war maraashinka abtiga unbaad ku agaboobaysaa maad meesha ka shaqo tagsid baan idhan waan iscanaantay markii aan abtigay u tegay baa ilaabti waxaan doonayaa inaan Berbera qabto abtigay wuxuu igu yidhi وأنا دويها بصاري دويها يمادينسو وأنا أبتي سفران راعية وبريقا بابور المبني ونفنفة هاي بابور مرقا سوي سفران راعي ساها دكان بوي كي لبقو يلقبا شاد يلقرن وحامل بوي بشي بوكيس نو وقلتولي بريس يتمر يسنكر مرقا سوي لبقو بود وربابي هنديان ماني بريقو يسوقن جريا buu sarif ka dhigay markaasuu safarada markaa raacdo oo ay xoolaha maartay qashaan oo la iibsado ku tarso caana markaa la rabto ku iibso dee waa ku kaa waayahay baan idho markaasaan habeenkii alaabtaydii isku duubtay waan barkaday abtigay baan la seexday xariiskii aanu seexan jiray waa xiis salaada arooriyo markaan eedaankii maqlay baan leeyaan abtigaa ku odhan inaan safarada la sii ballamo اللي نسافر راعي ما هي وكلي بان عقاب وحكتي انت البابكي يرسك فريبان حربت قاضي حربت وحاول دور مرة بيا بورت حاجة لكي ما دور بحن ليلا هذا غير بورات كنا من بحن بيا سوق على بطة بان كل إحداث هو كعبة مرة أرد كان سليقا مرة كان كذا بقى رقابة دليل هذا بدل وقول قار دور وديريان هانشري markaasaan halkaa aan waxaanu kula kulmay goor maqrib dhawaada gabadh badda dabaalanaysa gabadhii baa waxaan is idhi haddaba badda la ciyaar ina yaroo 15 jiro markaa kacay baan ahay hor gabadha malcaba iskala dabaala jiro la ciyaartid dharkeedii oo dibadda yaalnaana dharkaydii ag dhigtay alaabtaydii oo dhan baan dhigay nin magaaladaasaan dabaasha ku bartay oo timadheero cad baan lahaa oo baa intaan quusay baan
halkaa culabadeeda lugoojacdeeda intaan ka soo baxay baan timiin biyaha ku siiyey shax waa maagayaa markaasay si wariya baddaa ku dabaalootay iga dur maxaa loosta iga soo gelaysaa markaasaan intaan wada dabaalano markaasay si war kula dabaalan maayo badda geestaada ka dabaalo waan quusay shaan baan qaaday oo biyi baan intaa wax kaga siiyey waan kululeynayaa meesha dagaal idin dhex maraan leeyahay iyadoo aan dhaqdhaqaaqin oo kicin baa markaan biyi ka soo dhex baxay bay igu celisay markaan cantuugay bay iga sii daysay markaasaan isku soo qaaday markaasay ma dhaqdhaqaaqina halkeedii misna iga quusisay markaan misna mar cantuugay bay iga sii daysay markaasaan tashaday markaasaan wariyaha tan badda kaga adkaan mayside banaanka ku sug banaankii baan u soo baxay guntigaan diisha iskaga dhigay markaasaan guntiga gaabsaday oo labada loogu dhaafiyey oo bud weyn oo aan sitadoo madheedha baan sii qabsaday oo kii kale dhexda go-aya kale ku martay anigoo diyaaroo xaabtii fadhiyaa ba iyadoo aynan ahayn tuqsi nin ahay aan kala jeclayn ba iyadoo sima dheer bay lahayd oo badda marna sidaa simiila marna sidaa waad xadreynaysaa bay igu soo baxday markay ii soo jirtay badda ka soo dhammaatay baan kala hortegay budkii oo dharkayay kaa qaadanay intaan dharka qaadan naagtays maxaad bari ka ciilbeen budkii aan sidaa u taagay oo maxaad badda igu baktiinaysay markaasay tii ma iminkaan kaaga reynaya budkii aan sidaa u taagay gooray i qaaday iyo gooray i ligatay iyo midna garan maaye waxaan arkay anigoo jiifo labadayda gacmoodna ay ku qabatay gacanna xunaa iga saartay markaasay tiri wariyaha ma iska tegaysaa mise kancad iyo kan madow baan ku kala siibaa markaasaan anigu isla hadlay caloosha ka hadlay waxaan idhi wareedeen dadku hadduu islaayo waa tuu isku xiiqi jiray goormay ku legateen qofta dumari xasano markaad halkaa marayso badan kaa yara dhex gale ma af soomaali bay kugula hadlaysay sideetay gabadha u ahaa midabkeeda iyo jooggeeda iyo balqaabka dhismeeda nooga warramsay waa keed qaabkeeda iyo quruxdeeda iyo mid walba soomaali aan inta aan maray haddeer aan anigu soomaaliya dhex marayay horta quruxda iyo lafta iyo sida ilaahay u khalqay anigu weli gabadh sallowda mid dhib baan arkaa laakiin naag la qurux ahayd ama la tima ahayd ama la kub ahayd ama la bari ahayd ama la dhex ahayd midna ma jirin gabayga aan ku marka dambe u tirin doonaa baadna ku garan doontaa quruxdeeda af soomaaligana sida aynu u hadlaynaa bay ugu hadlaan afgooliyana iyagu waa leeyihiin oo aanan baran oo la yidhaahdo sida aan isagana kuu sheegi doono markay ku wada hadleen dadkii jidka ahaa haddaba halkaa markaan marayo maahayna waa tegayaa iska sii kayda way sii daysay waan dhaqaaqay markaan ka socday alla ilaah adigu midhaa 200 tallaabo baan soo eegay mise kaani milabiskii bay dhammaysato waa labisatay jeesadkaan sidaa u jeesay sidaa adii dhinac fadhido axmedow bay dhinac taagan tahay markaasaan iska socday anigu nin dudayaa markaasay ganabkaa igu dhegtay axmedow oo tiri inaan yar xaggee ku socotaa nin cadaysan baan gacanteedii baan iska tuuray axmedow markaan iska tuuray bay horqabataysay way isu kay gudubtay waxaa si war ma nacas baa tahay dadku waana isdilaa waana ishiiyaaye xaggee ku socotaa waydiiba maslaxaad gashay waa qof aabeedaana midhaataaka ku yidhi jin iyo insi ku hadesho baan kuu guurinayaa soo kaxayso marka anay heshado meesha iska kaygeli mayso ile hataanay rabin markii hore badda bay igu baktiin lahayd malegaba arkeene cajiib markaasaan axmedow aan berberac noo dudaya cadhadee waad garaysaa nin laga adkaaday baan afkooda berberac ku socdaa markaasay tiri oo berbera intee aad ku gaadhaysaa markaasaan intee galabta haddaan gaadhi waayo berri miyaanan gaadhay markaasay tiri carruuray cayntaan baaday berri saa dambe saa 10 casho kuma tegi kartid haye ma saasay u fogtahay markaasaa ay tiri war heedhe maantoo dhanna waad soconaysay waa inaan yara waa tahay waad gaajoonaysaa guriga iyagiyo halkale usii hoyo marka aad cashada iyo shaahaaga iyo waxalba ku bislaysato meeshii aad u socotay labo markaasaan yidhi oo reerku waa xaggee oo ana sashadoo yidhi oo maad cashadaada iyo shaahaaga intaad ku bislaysato markaad dareegto dayaxa raacdid si aad ugu dhawaatid berbera
marka qiyaastii may ka daweeyeen xasan oo xagga dada مثلا maya waxa ay ka soo la sheegi karo igama daweeyeen laakiin way iga daweeyeen xagga dhalashada laakiin cumriga qiyaastii waxba kama garanin laakiin cumriga weyn oo ay ka soo la tilmaamo ma kama muuqanin marka ya waxa markaan ku anagu 48 ma intaan halka iska helay anigu marka taariikhdeena yar baan ahaa waxaan garanayaa 48 inay haylo شنيو سياسي واتي تقال لقى صون ولا لبعض شنيو أفرتكي مركا شنيو أفرتكي تبادل بان سنتحدث عن الله بان قرنا يعني مركا شنيو أفرتكي هاي وقتها صار مفهوم مركا سيتلي واريال كي يقول لك لو شيء فرتي يقول مركا ثاني واريال كي هو حاجة مركا سيتلي فرتي يقول لك واحد كده مركا ثاني هو يا حد بوتي بأحمد ويجلسي كعنت أنا ويجب ستي حد بوتي ما كيجي ستي إلى بوت لا إلى بوت لا ما كنا يا واحد بوت ده كذا أنا قلت حاجة مركز سايتي مركز ثاني من كنا ومولا كنت كذي أوصل عن نقصي بيقصوا يا حج الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه مركز نقصوا يا عم بيجي إلى بوت يا حاجة طبيعية ما يصير أفهم كشينا ويك. هي بس. عبار واحد يقول له ما قاسي أنا جاي ما قاسي. أجول ما يقول لي من السلطان ما يقدر يسا. ما قاسي هذا ها. ما قاسي ترى بهي ما قاسي له قال. شيء يسوي واحد يسوق حيسوق. وأقول لي إذا كاير ما سوى ولا ما أدري كرتان. أنا قلت لي يسوي واحد ما كان عقانه اللي كانوا ولا ما قاسي كانوا كوما ما قال واحد موديا. بس إذا خير كي يقضي إلى هذا خير شوفت كنت جانا شل إلى هذا وأنا وخيرها بشتغل ماشي تجاه بام ما قال ما قال بانو قال بعدين يا بشتغل أوكي بانو قاتل وخيرها بشتغل ماشي تجاه بالمولي من قال ثاني يا الله إلى عاود ولا كشيء والله يقول صوياي من قال سيدي ما قال صار هو يقال ما قال سو من قال صار يجواي أنا سودح قليني له بول كفريسيو أنت أنا باسو ويجيني إنه يا كباي marka dadka soo sida way kaayeen dadka laftood waa kaamil waa sida aynu nagu nahdo waa dad caynkeeno waa dad caynko kale waxba xijaab iyo wax ma say bajrusaa iyo wax la igu sameeyay ma jirin rag iyo dumar iyo cabro iyo cid walba weeyay maya waa rag tukanay marka dumar ma aragaan iyo cabro rag bay ahaayeen tukaday oo salaam naqsay ku ay u soo yaacay marka muslim baa jin muslim bay ahaayeen meesha nimankaan ugu tegay markaasuu yidhi markaasaa sii buulkan sii fadhiiso maartay kuwan hadda gidaarada laga dhistay maxaa layaa buusaska aqal yar oo leeg baa lay geliyey markaasaan degta u dhigay oo idhi waa bari labada xoogaa isku ogaa orodoo markaasaan idhi markay kaa libtaan ka bood buurta oo carar wala caawad looday waan dhegaysto markaasi aleeya waa kaa fogaadeen baan siri bood boodadii aan sidaa idhi baa aqalkii igu soo orday soo aqalkaaba isteeshiya aqalka naftiisii bay ku soo orday markaasaan futada dhulka ku dhuftay horta axmedo markaasaa nafii igu dambaysay anigoo wadnuu bugtaay hayo markaynu baqayno waa ka wadneelu wax ka saqan wey anoo wadnuu damtaay hayo bay ii yimaadeen gabadhii iyo nimankii oo wada socdaa soo bax baa layidhi sudaankii baa yidhi u yaadha waa laysoo kaxayey meel weyn oo fagaaro ah oo ay samaysteen suldaanka iyo cuqaasha iyo mashaayiikhda iyo ragga madaxa oo dhan fadhiyaan waa casrigii boqortooyada baa meel laga soo geliyey albaabka laga soo taagay ridii markaasaan asalaamu calaykum asalaam haye markaasaa soo soco sultaankii waa kan guradaa fadhiya salaam